ani taladaydu waxa weeye in la midoobo la isu tanaasulo fara la isku taagtaago iyo in la kala adkaado iyo waxaas qarnigeedina waa la soo dhaafay adduunkana hadda kama jiraan in la kala adkaado iyo in la lagdamo midna macna ma sameynayso marka waxaan dhihi lahaa hogaamiyaasha Soomaaliyeed nooc kasta oo yihiin loo tanaasulo masaalixa dadka iyo dalka iyo diintaba anigoo Ilyas Bedel waxaan muddo joogay hal sano iyo bilal la jira magaalada Kismaayo oo khilaaf uu kaga dhaxeeyay aniga iyo dawladda Jubbaland muddo dheer ka bacdi waxaanu dawladda Jubbaland ku wada hadalnay in aanu maslaxada guud ee Jubbaland ka wada shaqeyno iyo midda Soomaaliyeedba inaan ka wada shaqeynaan ku wada hadalnay hadalka qaybtiisa hore qaybtii labaadna way noo dhimantahay hadii alla idmo waanu oo sii wada doonaa wada hadalka aniga iyo ragii kale ila fikirka ahaaba iyo dawladda Jubbaland waan sii wada hadalkana waan sii wada doonaa insha Allah anigu hadda caafimaad baan xog gaadhay magaalada Nairobi waxaan ku maqraanayaa muddo week iyo 2 week meelahaas ka bacdina waan soo noqonayaa khilaafkii ka dhaxeeyay Jubbaland iyo aniga naga dhaxeeyay ama aniga asxaabtanada naga dhaxeeyay halkaas uu ku egyahay way hadda ka dambeeya in uun sidii loo wanaajin lahaa xiriirka iyo Jubbaland wanaageeda iyo wada jirkeeda dadeed iyo dhuleedba in la sii wado yaan ku balansanahay waana wadi doonaa insha Allah biidnillaahi alkariim intaas aan rabay inaan la wadaago saxaafadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin dadka reer Jubbaland hambaliyaan leeyahay khilaafkii iyo dhibaatadii iyo problemskii aniga xaggayga jiray inuu inaha ku ekaadaan yaan jeclahay biidnillaahi alkariim wixii hadda ka dambeeyana aniga oo ah Senator Ilyas inaan ka qayb qaato hawlaha iyo dhibaatooyinka hadda ka jira abaaraha iyo mushkuladaha hadda wadanka ka jira inaan qaybtayda ka qaato kalana shaqeeyo dadka iyo deegaankaba yaan diyaar u ahay ilaahay waxaan ka baryayaa dadka abaaraysan in abaaraha ilaahay uu maaragtay u fududeeyo oo ilaahay roob siiyo yaan ilaahay ka baryaa midda kale dhinacyada isahaaye ee siyaasadda ana waxaan dhihi lahaa in la dhameeyo khilaafaadka ka dhaxeeya ummadda Soomaaliyeed guud ahaanteed maslaxad bay u tahay Soomaali maanta meel xun bay maraysaa xaaladeedu dhibaatooyin aan weligood soo marin Soomaaliya maanta haysta dagaaladeedii bariga dhexe dagaaladii ka jiray baa la soo rarayba oo la keenayba hadda Soomaaliya waxay u baahan tahay inay midowdo si dalkeeda iyo dadkeeda u difaacdo hogaamiyaasha siyaasadda level kasto yihiin ani taladaydu waxa weeye in la midoobo la isu tanaasulo fara la isku taagtaago iyo in la kala adkaado iyo waxaas qarnigeedina waa la soo dhaafay adduunkana hadda kama jiraan in la kala adkaado iyo in la lagdamo midna macna ma sameynayso marka waxaan dhihi lahaa hogaamiyaasha Soomaaliyeed nooc kasta oo yihiin loo tanaasulo masaalixa dadka iyo dalka iyo diintaba aad iyo aadna waa u mahadsantihiin aniga wixii igu aadan reer Jubbaland iyo qaranka Soomaaliyeed bana diyaar baan ahay inaan dhinacayga ama tanaasulaad ka bixiyo ama aan maaragtay wixii tale igu aadan aan bixiyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin